الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ولا ليال waxaynu ka hadlaynaa insha Allah xuska rabbi subxaanahu wa tacaala la xuso fadliga uu leeyahay iyo sida ruuxa maalinka qiyaamada uu u anfacaya ilaahay oo la xuso. rabbi subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun. fadkuruunii ixusa buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaalaa oo isheeg sheega subxaana allaahi dhe, alxamdu lilaah dhe, laa ilaaha ila allah dhe, allaahu akbar dhe, walaa xawla walaa quwata ilaa billaah dhe. ilaahay xusa, anna waan idin xusayaa buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun. igu shukriya oo nicamta aan idin siiye iigu shukriya, nicmada caafimaadka, nicmada amniga, nicmada awlaadda, nicmada caafimaadka, nicmada baaqi ahaanshaha, nicmada ilaahay xuska aad xusaysaan nicmo ah, taa iigu shukriya buu rabbi leeyahay, hana iga gaaloobina oo nicmadayda ha iloobina. xadiiduu warinaya imaamu albukhaari fii saxiixihi can abi muusa radia allaahu canhu qaala qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam mathalu aladii yadkuru rabbah waaladii laa yadkuru rabbahu ka mathali alxayi waalmayit. abi muusa waxaa laga wariyey radiallaahu canhu inuu yidhi, nebiga ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam, ninka xusaya rabbigii ee rabbigiisu ee ku xusaya adkaarta iyo qur'aanka iyo cibaadada, iyo ka rabbigii aan xusaynin ee warba aanu haynin adduunyo iskaga mashquulsan, waxay isu yihiin buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida nin nool iyo nin dhintay. ninka nooli dee wuxuu leeyahay nafci buu leeyahay, ummaddii buu anfacaya, naftiisu anfacayaa. waxaa weeye ruuxa dhintayna waxaa weeye naftiisana ma anfici karo, ruux kalena ma anfici karo. xadiid kaloo imaamulbukhaari uu soo saaray wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam, xadiidkaa waxaa warinaya abi hurayra cabdiraxmaan bnu sakhr. wuxuu yidhi abi hurayra radia allaahu canhu qaala qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigaa wuxuu yidhi kelimataani xabiibataani ila araxmaan khafiifataani cala allisaan haqiilataani fi lmiisaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. wuxuu yidhi abi hurayra allaha ka raadi noqdee, nebiga ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam, naxariisiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, laba kelmadood xabiibataani ila araxmaan, allaha raxmaana xaggiisa aad baa looga jecel yahay, ruuxa ku hadlana rabbi waa ka raadi noqonayaa, jannadiisana waa gelinayaa. khafiifataani cala allisaan, carabku marka uu ku dhawaaqayo way fudud yihiin oo carabku wakhti yar buu ku dhawaaqayaa, wakhti dheer kuma qaadanaysa marka uu ku dhawaaqayo. waxaa weeye markaa haqiilataani filmiisaan, miisaankana way ku culus yihiin oo miisaanka markii la saaro buurta uxud way kaga culus yihiin. maxaa yeelay waxaa ku jira ismigii ilaahay subxaana allah, allaahi baa ku jirta. ismiga ilaahayna wax ka ka xoog badnaanayaay oo ka raxjaahnaanayaay ma jiro. markaa labadaa kelmadood waa haqiilataani filmiisaan, miisaankay ku culus yihiin. labada kelmadood waa macay subxaana allaahi wabixamdih, ilaahay baa nasahan, xumaan oo dhan ka nasahan, sifatulkamaal oo dhanna ku sifoobay, anoo xamdigiisa iyo mahadnaqiisa ku maran. subxaana allah, ilaahay baa nasahan oo xumaan oo dhan ka nasahan, allihii alcadiimi weynaa. inta ayuu ruuxu dhahayaa, marka allah raxmaani waa ku jeclaanayaa, carabkana way ku fududdahay, miisaankana way ku cuslaanaysaa. subxaana allaahi wabixamdihi subxaana allaahi alcadiim. wallaahu aclam. walaalayaal aynu ka faa'iidaysanno, waxaa weeye aynu markaa dikrigaana ku camalfalno. wabillaahi atowfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.